فكرك غلوك هي تطرفك حق جرك لو ما قعدري وسكو بدلي إن بامبويني قرحيو انتقاته إنه مساجد دي يدكسي دي قرآن كي سوققي يبرشده إن ماله سوء إيمانيسي يقف مسلنا يدلنا أو مسلنا إن قال له قلت المامي مرتدين فكر كالنوع عاسة إن لا قدر ولا قدر علمه لا دبر جرو هي أدان لو أساسي إن قلبتي هل كان وسوق يبقلنا ولبا فكر كاس لبا تديسي ومدة أو جارسيي تي أو وينيد بالسريه كلا تي أو خسارة بشرية بدنايد أو 8 سنة كور مقالة مقدشو اسكوسكا كيلومتر 5 كدعدي أو قلبتي لوسو آدي مناسبة دان إن دتك دب لو حسوسيو نمان كاس يا خطرتها يا هلسته أي فكر كودو أو ليه هاي هي دبعتدي ومدة إيجارسيين ونف يا مال يا دتك قاركود هدرتان أي لجيفان يعني ترومدي يا عبسدي أي جليين دتك أصغار كم إذا مساجد كنت كنيين قاربة مساجدي كل انتهي هوتيل دولة وماشة وكل دعوة عمي قاربة دبعت حقني كو قارتي كو بابايو عرقتين جركودي سيدو أمور حي دسمياشي ماشة كو جيرودن نوكلير ميل نوكلير وكو دعايو كله إنوها مركا فكر كاس خطرت سيدا نوكلير كي وقرحي إنو مدى اللوغد ديغو ووحوين مالي كاسرونتي مالين آد مرغو أوله بهيد مالين دادكا سوماليات مسكحدو دولي أن كتر من كان ترمي دونين والله حسي دونا بقول سنة كدب دبعتداس انت اسكليه ما هنه بقولال دعدو كله ayaa oo u dhow taas ayay sameeyeen ilaa haddana ay ku howleeyeen oo toddobaad ka hor ay ahayd mid lamida kuwaas oo kale inay damacsanaayeen laakiin ilaahay falligiis ay maaragtay ka fashilantay oo la fashiliyay ayaguna ay ku baabeen dadka ugu badanoo khasaaruhu ku soo gaaratay hadda u dambeysay iyaga ahayd oo 7 qofood oo naftoodii soo fogeysay runtii Sheekh Cabdulbaari waa ku mahadsan yahay wuxuu nimankaas ayagaaba isdaldalayaba hadda ayagaaba isxukumay dil isku xukumay dambigii ay ummadda ka geysanayeen bay dil isku xukumeen oo bambooyin isku soo rakibeen marka hay'adda tubsan runtii ujeedooyinkii loo sameeyay qayb ka mid ah waa howlahan wacyigelinta culumadana asaas u ah halkan culumo waa joogaan dadkii ugu waaweynaa waliba baariziinta ahaa ee barnaamijkan qaybta ka ahaa ee bulshadeena inay ka harto fikirkan sabab u ahaa waayo hore dadku wax farqi oo ma dhaxayn dawlad iyo al-shabaab kooxaha khawaarijta laakiin 3 sano u dambeysay iyo culimadii markii shirkii koowaad oo iftaha ay soo saareen iyo shirkii labaad iyo gulufkii xooganaayoo la qaaday dawladdu ay qaaday intaasoo iskaashatay iyo akawnadoodii oo hadda la sheegay FRC da hay'adan FRC do akawnadii iyo meelihii lacagta ay ku qaadanayeen oo dhan xirtay intaasoo iskaashatay waxay xoreysay shacabkii amniga la dareemayo iyo xasiloonida jirtana askar tiro badan maaha laakiin shacabkii awal aysan u kala cadayn arintu oo mararka qaar koodba xaggooda jiray ayaa dhanka dawladda iyo dhanka xaqa soo jirsaday taasaa keentay xasiloonida maanta jira